بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ساكا waxaa halkan madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland shir kula yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ay weheliyaan wasiirada qaar wafdi ka socda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo hogaaminayo wakiilka xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo halkan safar ku yimi waxyaalo badan baa laga wada hadlay arrimo badan baa la isla soo qaaday oo madaxweynaha iyo wafdiga ay ka wada hadleen wax walba dhinac walba wixii allaaliya wixii loo baahnaa waa laga wada hadlay ugu muhiimsan ee arrimaha ugu haddaan wax ka soo qaado waxaa ka mid ah waxay Soomaaliland u gudbisay wakiilka xogayaha guud ee Qaramada Midoobay inuu ka gaarsiiyo fariimo ka gaarsiiyo xogayaha guud kuwaas oo ay ka mid yihiin in muddo imika 30 sanadood ah Soomaaliland ay hanatay oo ka shaqaysay madax banaanideeda qadiyadeeda ay mataqaanaa gudatay ay ka taliso danaheeda dhamaantooda iyadu gacanta ku hayso oo ka taliso hadday tahay dhulkeeda iyo maamulka dalkeeda hadday tahay cirkeeda hadday tahay badeeda mid walbana ay ku guursatay inay ka shaqayso xasiloonidiisa iyo nabadiisa iyo noloshiisa guud ahaan marka taas fariin in la gaarsiiyo aad muddo badan inaanay gaarin jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo caalamka inaanay gaarin arintaasu inuu sida fariin ahaan u gaarsiiyo waxa kale oo fariin ahaan xogayaha Qaramada Midoobay aanu ka codsanay inuu gudbiyo in saluug weyn inaga jiro waxtarka iyo dhaqaalaha iyo deeqaha laga helo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo dalalka kale ee maxayto caalamka guud ahaanba ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ku jira hadday tahay maxayto xagga maxayto dhisida kaabayaasha dhaqaalaha hadday tahay shaqo abuurka iyo caawinta hadday tahay arrimaha maxayto bulshadu u baahan tahay sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo ay tahay mid walba in ay aad iyo aad saluug badan inaga jiro waxtarka caalamka oo fariin ahaanta u gaarsiiyo waxaanu loo sheegay madaxweynuhu u sheegay in wixii khilaafaad ahaa iyo xasilooni darro ahaa dhamaantoodba Soomaaliland ay ka gudubtay wixii iyada dhexdeeda ka taagnaa haddii ay wax khilaafiyaa jireen in la xalilay oo dhamaantood imika dalku xasiloo yahay in jaarka iyaga iyo waliba Soomaaliya wax qaybteeda aanu jaarka nahay Puntland aanu ku dadaalnay oo si wanaagsan meel wanaagsan isla gaadhnay oo aanu imika si nabadgelyo ah diyaar ugu nahay in wixii jiraba aan ku dhamayno oo ugu wada noolaano oo aan wax dhibaato ka jirin waxaanu kale oo madaxweynuhu u gudbiyay oo u sheegay wafdiga in Soomaaliland diyaar u tahay Soomaaliya inay la garnaqsato oo la fadhiisato oo la doodo oo arrimaha masiiriga ah iyo mataqaanaa ay kala hadasho ayuu taansa inuu madaxweynaha inuu xogayaha guud iyo caalamka inuu u gudbiyo ayaanu taana u sheegnay waxa kale oo madaxweynuhu u gudbiyay in arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland oo ilaa imika hadal ka taagan yahay in meel wanaagsan la isla gaaray in Soomaaliland oo dhan ay ka wada shaqeynayso hadday tahay xisbiyada hadday tahay waxgaradka hadday tahay maxayto dhaqan-yaqaanka iyo odayaasha hadday tahay bulshada iyo beelaha iyo dhamaantood in loo diyaar yahay in maxayto arinta la xalilo oo laga wada shaqeynayo oo ay ka go'an tahay reer Soomaaliland in doorashooyinka la qabto. Good morning and happy new year to all of you. Thank you very much Mr. Minister. I thank President Musa Bihi Abdi, his team and the people of Somaliland for their warm welcome. I last visited Hargeisa 6 months ago, and I intend to continue to visit regularly
for discussions with senior officials, as well as non-governmental actors on developments in Somaliland. The United Nations maintains a full-time office in Hargeisa and implements a wide range of programs to benefit the people of Somaliland. During this visit, I was honored to meet with President Bihi and members of his cabinet, civil society representatives, political party leaders, and international partners working in Somaliland. I also visited a disability skills project and a wildlife rescue project. The United Nations welcomes initiatives aimed at building mutual confidence and fostering dialogue between Hargeisa and Mogadishu. We believe there are many areas in which greater cooperation could improve security, promote economic growth, and improve the lives of the people. We encourage rapid progress to complete all necessary steps for Somaliland to hold parliamentary elections in 2020. We welcome the inter-party dialogue and urge implementation of the recent agreements that would enable preparations for elections to be held in 2020. We call on Somaliland authorities to ensure respect for freedom of speech and assembly, as well as the ability of political parties to organize and function. Such political space is essential for a credible process. We are committed to continuing United Nations engagement with Somaliland and our many programs in support of its people. With 16 United Nations offices, agencies, funds, and programs active in Somaliland, our support covers a wide range of governance, security, development, and humanitarian programs. As examples, the UN's work includes support to primary schools, equipping teachers with the skills and materials to provide a sound basic education. We provide assistance to internally displaced people and refugees in Somaliland, fleeing conflict elsewhere or forced to move by drought. We support the rule of law, policing, and the justice system. The UN's work is diverse, but the common thread is that it aims to make a practical and positive difference to the people and public services of Somaliland. Again, I thank our hosts for the kind reception. I look forward to continuing regular visits to Hargeisa to maintain our communication and collaboration and to follow up on the important issues that we have discussed this week. Thank you.